noolaha ugu dambeeya ku soo haraya adduunka kadib marka laga qaado nafta dhammaan noolayaasha oo dhan ee leh bini'aadam, xayawaan, shimbiro iyo xasharaadba, xitaa jinka iyo shayaadiinta iyo malaa'igtaba. Nafta laga wada qaado wuxuu noqon doonaa noolaha ugu dambeeya ku soo hadha adduunka korkiisa, kuna soo hadhaya amarka Alle subxaanahu wa tacaala ilaa iyo xilligii uu Alle subxaanahu wa tacaala u abuuray sayiduna aadam calayhi salaam. Waa makhluuqa keliya ee ka qabanayay nafaha makhluuqyada bilowga kownka, kana qaadaya nafaha ilaa dhammaadkiisa. Sidoo kale waa noolaha nafta ka qaaday nebiyada iyo rusushaba. Marka laga reebo nebi ciise calayhi salaam, waa Alle samada kore u rafciyey, isna wuxuu ka qaadi doonaa aakhiru sabanka marka uu soo dego si uu u dilo masiixu dajaal, waana malakul mawdka Casraa'iil. waana ka qaada nafaha bini'aadamka, xayawaanada, malaa'igta iyo shayaadiintaba. Sidee buu nafta uga qaadayaa baad malaynaysaa ibliiskii lacdanaa iyo qisadii dhex martay isaga iyo sayidina muuse calayhi salaam. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa weydiiyey malakul mawdkii, weligaa ma oyday inta aad nafaha ka qaadaysay bini'aadamka? Wuxuuna ku jawaabay malakul mawdkii, yaa rabbi, waad og tahay, hal mar waan qoslay, hal marna waan ooyey, hal marna waan argagaxay. wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala weydiinayaa, maxaa kaga qosliyey? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan ahaa mid isu diyaarinaya inaan nafta ka soo qaado nin ku leh kabato leh, iga adkay kabaha, waxaan doonayaa inay sanadii hayaane, waanan ku qoslay, waxaana naftii ka qaaday inta aanu xidhan. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa weydiiyey, oo maxaa kaa oohiyey? Wuxuuna ku jawaabay, waxaan ooyey markaad i amartay inaan nafta ka soo qaado qof dumar ah oo meel saxaraha joogtay oo foolanaysay, waana sugay ilaa ay ka dhalaysay. markii ay dhashay ayaan naftii ka qaaday cunugii ay dhashay oo aad u ooyaya una qaylinaya. Alle subxaanahu wa tacaala haddana weydiinaya, oo maxaa ku argagax geliyey? Wuxuu yidhi, waxaan argagaxay markaad i amartay inaan nafta ka soo qaado nin caalim ahaa oo culimmadaada ka mid ah. waxaana la kulmay iftiin aad u daran oo ka soo baxaya qolkiisa. markasta aan ku soo dhowaadino qolkiisa, iftiinka xooggiisa ayaa dib ii soo riixayay, waxaana naftii ka soo qaaday anoo la yaaban nuurka. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku yidhi, ma ogtahay ilmihii aad kaga tagtay saxaraha? se ma ogtahay qofkii ahaa shiikhii kaasoo la yaabaneed nuurkiisu? waana ilmihii aad saxaraha kaga tagtay, anaana kafaalo qaatay oo ilaashanayey. waxaa jirta qiso dhex martay malakul mawdka iyo sayidina muuse calayhi salaam. wuxuu u tegay malakul mawdkii isagoo iska soo dhigaya oo wata suurad bini'aadan. nebi muuse calayhi salaam ayaa dhirbaaxo qabaysiiyey malakul mawdkii ilaa ay ishiishi bannaanka ay ku soo duushay. wuxuuna malakul mawdkii ku laatay Allah subxaanahu wa tacaala, wuxuuna ku yidhi, waxaad ii dirtay nin aan jeclayn inaan nafta ka qaado oo uu dhinto. Allah subxaanahu wa tacaala intuu ishiishii u soo celiyey ayuu ku yidhi, ku laabo, waxaanad ku dhahdaa muuse, gacantaada baabicadeeda waxaad saartaa dibi, dhogorta dibiga wixii kaa soo raaca tin yar oo ka mid ahba sanad ka dhigo. sidii buuna yeelay. wuxuuna fariintii gaadhsiiyey nebi muuse calayhi salaam. wuxuuna nebi muuse calayhi salaam ku yidhi, oo maxaa xigaya haddaan intaasoo sannadood aan noolaado? wuxuu malakul mawdku ugu jawaabay, dee nafta un baan kaa siibayaa, waanaad dhimanaysaa. wuxuu nebi muuse calayhi salaam ugu jawaabay, oo haddaan kolba dhimanayo iminkaba ruuxda iga qaad. sidii baana ruuxii looga qaaday nebi muuse calayhi salaam. qisada isaga iyo ibliis u dhexaysa ayaa ahay mid aad u layaab badan. wuxuuna ahaa malakul mawdka mid ka cabsada marka uu doonayo inuu nafaha ka soo qaado nebiyada iyo culimmadaba, balse wuu bahdilaya kana argagixinaya. waana ruuxa nafta ka qaadaya ibliis afuufidda koowaad ee suurka. wuxuuna ugu tegayaa malakul mawdku suurad argagax leh, oo hadday arki lahaayeen dadka toddobada samood iyo kuwa dhulkaba ay ka cabsan lahaayeen. wuxuuna canaananayaa malakul mawdku canaan cabsi leh, oo hadday maqli lahaayeen dadyoga cidhif ilaa ka cidhif adduunka ku nooli ay la suuxi lahaayeen. wuxuuna ku odhanaya, kac sharyahow, maanta ayaan ku dhadhansiin doonaa geerida. imisaa la ii kaasasabay, imise qarni ayaad wax dhuminaysay. waxaa la gaadhay wakhtigii adiga iyo rabbiga, xaggee ayaad u baxsan doontaa? markaas ayuu ibliis u cararaya xagga ayaa qorax ka soo baxa. saa waa malakul mawdkii oo weli indhihiisa hor jooga. suu damcaya inuu ku dhunto badaha, saa haddana waa malakul mawdkii, wayna soo tuurayaan baduhu mana qaabilayaan. wuxuu cararaba markuu waayo meel uu cararo iyo meel uu ka badbaadaba, ayaa intuu dul istaago qabrigii nebi aadam calayhi salaam ayuu ku dul odhan doonaa, aadamow, adiga dartaa baan u noqday mid lacdanan, hoogaagee maxaa lagu abuuray? suu malakul mawdkii uu ku odhanayaa, koobkii ayaa layga waraabin doonaa, yacni cadaabkii ayaa la geynayaa ruuxdayda. wuxuuna malakul mawdku ugu jawaabayaa, waxaa lagaa waraabin doonaa koobkii reer saqara, naarta iyo jaxiima, waana lagu laba jibaarayaa. markaas ayuu intuu ciidda isku gelgelmiyo ayuu mar kale u cararayaa qorax ka soo baxa ilaa qorax ka dhaca, haddana qorax ka dhaca ilaa qorax ka soo baxa, ilaa uu markii dambe uu tegayo goobtii lagu soo tuuray markii lasoo lacdanay. markaas ayaana nafta laga qabanayaa qabasho aad u daran.